kulanti waxaana wanaagsan dhammaan baad kuxiraan janaalka kulmiye technology korsaan waa korsa c plus walaa casharku waa casharkii konton iyo shanaad maanta waxaan qaadanaynaa qaabkii aad file xog ku jirto qaabkii aan ugu soo aqri lahayn qaybtan aan iska yareeyo si aan space fiican u helno marka ugu horeyso waa inaan aan sameynaa objectigii aan kusoo aqri lahayn fileka marka waxaan u baahanahay glasskan la dhahay file stream okay kadibna objectigeena inaan samaysanaa magaca muhiimaan halaan hore ayaa soo sharxay haddii aad rabto objectii hadda waa sameynay kadib parameterized constructor aan wacnay parameterized constructor wuxuu u baahan yahay laba argumenti kan ugu horeeyo oo ah sheeg kan aan rabnay inaan wax ka soo aqrino kan lamaad oo ah qaabka aan flag aan bii kala qaabka aan rabnay inaan wax soo aqrino si aan taas ugu sheegno filekeen magaciisa waxaa la tijaabo.txt kadibna waxaa leedahay ios kaasoo ah input and output stream waxaa rabaa filekan inaan qaab xogta aan kasoo aqriyo colon in outna waxaa waaye xog ku shub kana waxaa waaye in xog kasoo aqri okay waxaa dhana xog kasoo aqri alahan kaliya waxaa waaye file xog kasoo aqri filekan la dhahayo tijaabo xogta ku jirta soo aqri okay laakiin wax kaloo functionality shaqo kale muu diran waxaa u baahanaa xogtii aan soo aqrino meel aan ku xarayno marka hal variable aan qabsanayaa kaasoo ah sadar waa qabsaday waa ever waaye hadda wax kuma jiraan kadib waxaa leeyahay wax kasoo aqri waxaa soo qaadanaya objectiga kaasoo ah sanduuq kadibna waa kana calaamadan waxaa isticmaalaysaa double greater than ah ka weyn kadibna halaan waxaa waaye kasoo aqri fileka hal eray kasoo aqri fileka kadib haddii aad soo aqrisan waxaa ku shubtaa variablekan hal eray ayaa laga soo aqrinaya waxaana lagu shubayaa variablekan kadib wixii meeshaan lagu soo shubay balaan aragno sadar waxaa jira function kale kaasoo habboon markastoo aad fail isticmaalaysid inaad failkaaga aad xirtid maxaa yeelay failka wuxuu qabsanayaa memory badan si memorygaas aad free ah ugu dhigtid waxaad u baahan tahay markasta aad fail samayso waa markasta waa waajib okay sanduuq marmar qaarna waa ka tegi kartaa laakiin adiga haddii program shaqeynaya aad samaynaysid hadda kan waa example waa laga tegi karaa waa tusaale laakiin program shaqeynaya haddii aad samaynaysid waa inaad xirtaa markasta close functionkaas ayaa isticmaalaynaa kaasoo markii shaqadeena aan dhamaysano haddaaya memorygii aan shaqadan nagula qabanaya in la diyo oo applicationada kale ay isticmaali karaan balaan aragno okay sidaa ujeediin kan ayaan ugula qabsaday waana muhiimadda aan haddaaya u hormariyay classkan dad programmer c plus plus ayaa sameeyeen sida tutorialkii hore aan usoo sheegay marka filekan meeshii ay dadkaas ku diyaariyaan waa inaan directorygaas u sheegnaa si aan directoryga u sheegno waxu baahan tahay include kadibna waxaa leedahay file stream okay kadibna waxaan leenahay build and run okay sidaa ujeediin maxaad shaashada ujeediin maxaa yeelay keliya si calaamadan iyada keliya haddii aad isticmaalaysid greater than amba si in xataa haddii rabta ha noqoto keliya waxay soo qaadaysaa hal xaraf waxaa jiro function kale kaasoo ah hal sadar kuu soo qaadayo balaan horta aan tago failka tijaabo oo nadiifa waa kana sidaa ujeediin keliya waxaa la soo qaaday waa kana waxaan space oo arkay kadib haddii space arkay stringiga waa dhammaaday halaan kale waa la iska ignore gelina haddii aan rabno inaan soo qaadno halkan sadar waxaad isticmaalaysaa function kale kaasoo ah getline okay functionkaas isla aragno getline kaasiga wuxuu soo qaadayaa dhammaan sadarka oo idil wuxuuna u baahan yahay horta fileka aan wax ka soo aqrinayno objectigiisa sanduuq iyo wixii la soo aqriyay meesha lagu shubayo okay
bal hadda sadarkan aan iska baxsho wuxuu soo bandhigayaa bal aan isla aragno waxa ugu horeeya tijaabo wuxuu soo bandhigayaa waxaan ahay arday fiican halkaas sadar ayuu soo qaadanayaa soo andhawa bilaran si ujeedin waxaan ahay arday fiican okay waxaan rajeynayaa inaad fahanteen qaabka file xog looga soo aqriyo iyo qaabka xog loogu qoro fileka wuu sii socon doonaa casharadan project ayaan ku qaadan doonaa videoga like saar channelkani subscribe saar mahadsan